jeedaanba maanta waxaan ku guda jirnaa shaqo maalmeedkii caadiga ahaa waxaana shaqo ka helnaa oo nadaafad ah oo biyo dhaamin ah masjidka xareed saacadaanu ay tahay salaada duhur hadda la aqrimaayo waxaan ku jirnaa hooshii caadiga ahayd waxaana gacan weyn iyo mataqaana ay sheeg hooshani hadda nala wado ganacsatada guddiga ganacsatada ugu horeeyo gudoomiyaha ganacsatada gobolka Banaadir iyo xubno ka tirsan maxaa la yiraahdaa maamulka ganacsatada runtii sharaf ay noo tahay waana maalin runtii maalmaha kale noogu duwan waay mar haddii annaga iyo ganacsatadii aan isla falgelayno hooshiina aan isla wadno waxay caddeyn u tahay in yacni qaabka annaga iyo aan u wada shaqeyno shacabka ku dhaqan degmada Howlwadaag aan u wada shaqeyno ayay caddeyn u tahay marka waxaan ka wadnaa masjidka xareed aan ka wadnaa baada saxaafadda gudoomiyaha degmada Howlwadaag ganacsatada ka soo qayb galay nadaafadan aan ka wadno degmada Howlwadaag gaar ahaan masjidka xareed weyn kaga mahad celinaynaa dawladda iyo sida shacabku ay u wada shaqeynayaan waad u jeedaan qof walba oo arrinkan oo dhibayana waxaan ku leenahay soo dhawow nagala qayb qaado nadaafadda nagala qayb qaado bilicda magaalada annaguna waxaan qaadan doonaa doorka aan ku leenahay iyo intii aan ka awoodno ilaahayna waxa weey ninkale waxaan weydiisanaynaa inuu arrintaas nagu xiftiyo naguna garab galo adinkana waxaan idinka rabnaa intii aad ka awoodaan inaad nagu garab siisaan wanaajinta aan wadno oo wadadaas hadda xirneed oo aad maanta u jeedaan dhibkii ay qabtay ilaahayna hadda uu na waafajiyay inaan furno waa sida ay uga hadleen gudoomiyaha degmada Howlwadaag gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir Abdullahi Hassan iyo ganacsatada kale oo kana qayb qaadatay xaqiiqatan dhibaatadii meeshan ka jirtay oo qashinkaas iyo biyaha isbiirsaday oo meelay u baxaan aan lahayn dadkii deegaanka iyo maqaaradii iyo ganacsigii ku hareereysnaana ay ka qaxeen arrintaas intii u soo gurmatay oo ama madaxda ganacsiga iyo madaxda degmada ah ama dadka ganacsatada ah ama samajaclaha deegaanka ah kulligood oo dhan waa uga mahad celinaynaa annaguna waa ka qayb qaadanaynaa sida aad la socotiin bahamiin kasta intaas oo tan oo qashin ahaa lagu dara oo dadku ku soo fogeeyaan dhibka ka jirana qof walba oo gobolka Banaadir ku nool dadka badankeedu way yaqaaniin wayna garanayaan waa masjidkii xareed qashinkii u dhawaa